fiisayaasha U iyo T waa dheefaha socdaalka federaalka ee loogu talagalay dhibanayaasha dembiyada ee aan muwaadiniinta Mareykanka ahayn iyo xubnaha qoysaskooda. Fiisayaashan waxaa sameeyay dowladda federaalka si ay u kordhiso soo sheegista dembiyada, waxaana kormeera waaxda amniga gudaha. Marka loo eego tirkoobka Mareykanka, 13% oo ka mid ah dadka degan Hennepin County waxay ku dhasheen dibadda Mareykanka. Fiisayaasha U iyo T waxaa loogu talagalay in lagu difaaco iyaga. Badbaadada waa muhiim. Waxaa sidoo kale muhiim ah dhageysiga kiisaskooda. Fiisayaasha U waxay difaacaan dembiyada u qalmaya qaarkood, dembiyada rabshadaha ka ganacsiga dadka, iyo dembiyada hor istaaga baaritaanada iyo shaqada saraakiisha booliiska. Haddii aadan ahayn muwaadin Mareykan ah oo aad dhibane u ahayd dembi u qalmaya, wakaaladda waa inay caddeysaa. Xafiiskeenu wuxuu ku habeyn doonaa codsigaaga shahaadaynta 30 maalmood gudahood ama 7 maalmood haddii aad ku jirto dacwad musaafirin ah. Waxaan shaqaaleynaa koox kala duwan oo isku xira dhibanayaasha oo ku hadla luqado badan. Waxaan halkan u joognaa inay bixiyaan adeegyo dhaqan ahaan gaar ah iyo xaqiijinta inaad hesho adeegyo luqadeed. Haddii aad dhibane u ahayd dembi oo aad qabto su'aalo ku saabsan fiisayaasha U iyo T, fadlan email u dir visa@hennepin.us ama wac 612 596 055.